haduu igu jirana xanuun igu haya maxay helay maxaan ku raaday dhibaato weyn biigu haya meesha bay goy rabta mar dhiig bay keenaabo katiitarku maxaan ku raaday mar dhicaan buu keenaa kolba wax buu keenaa xaalad xun buu igu jiraa maxaa 6 bilood buu igu jiraa muddo badan buu igu jiraa talaabo ma qaadi karo way guri ka bixi karo meel ma tii karayo maxaan ku raaday nolosheedii dhanba katiitarkaas aan ku soo koobay mustaqbalkayga dhanba waxaan ku soo koobay katiitarkaas marka walaalahayga waxaan ka codsanayaa inuu Ilaahay faraj iga furo katiitarkan la iga reebo onde walaal sida dadka caadiga aan u dhaqmo qof mustaqbal labanahay ina yar baanahay adduunkan oo ku cusub baanahay haddana maxaan ku raaday nolosheedii la daba qaatay katiitarkaas u daba qaatay baanahay maxay helay katiitarkaas intaas oo dheer igu jiray marka mustaqbalkayga dhan katiitarku ma koobi karo qof mustaqbal laanahay walaal marka waxaan iga codsanayaa caawimaad sababtoo hooyadeena ma awoodo muddo waxay haysay 10 sano ah ay kulba dhakhtar geenisay dhakhaatiirtii Itoobiya hooyada lacagta way ka dhameeyeen lacag hooyadii maanta gurigeyga waxa dib ugu laabato xataa boos ima haysay maanta iibsay igu dhageysa dhakhtar maxaan ku raaday waxaan nahay ciyaal yaryar oo agoonahay marka maxaan ku raaday xataa gurigeyga cid ay kaga dambeeyo hooyadii maanta ay tiraado qofkaas ugu dambeeyo ma jirto hadii maanta aniga hooyadii teeda noqoto xataa uma maleynay qof dambe oo katiitarka ma dhakhtar ama meel dambe isii geeyeen inuu jirin sababtoo waxaan ahay qof hooyada kaliya taasata marka ma aqaan wallahi nolosheeda waxa u dambaysa laakiin ilaahay baa iska tala saarnay mudda nabi maxamed bana caawimaad ka sugaya sababtoo hooyadii mooy qof kale xataa maanta hooyadii xataa iga soo garab istaagay ma jiro hooyadii xataa caaw madax xanuuna ma ogi inuu katiitarkaas igu sii jiri doono in xaaladda ku sii sugnaan doono qof iska feenayso meel isku buuxinaysa ma yihiin sababtoo waxaan